magaalada Abu Dhabi wax lagu qabtay munaasabad ay soo qaban qaabiyeen ururka mideynta iyo horumarinta beesha Madhibaan ee mudda waxaana ka soo qayb galay munaasabadan odayaal aqoon-yahano waxgarad iyo haween ka soo jeeda beesha Madhibaan sidoo kalena waxa ka soo qayb galay Umar Cabdishiir oo ah gudoomiyaha guddiga jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Sultan Imaaraadka Carabta Sultan Maxamed oo kamid ah salaatiinta Soomaaliyeed iyo Maryam Mursal Ciise Botaan oo kamid ah fanaaniinta qaranka Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale oo ka kala yimid qaaradaha Yurub iyo North America kulankan ayaa ah mid looga hadlayay sida kor loogu qaadi lahaa fulinta mashaariic kala duwan oo isugu jira waxbarasho caafimaad iyo shaqo abuuris ugu horeyntiina waxa halkaas ka hadlay Axmed Ubax oo kamid ah dhalinyarada soo aasaastay ururkan wuxuuna sharaxaad kooban ka baxshay walajiidooyinka loo aasaasay ururka oo la yiraahdo Madhibaan Education and Development Association af Soomaali ahaan ururka mideynta iyo horumarinta beesha Madhibaan sideedaba horta jamciyadan waxa laga soo shaqeeyaa dalka Soomaaliya si ay adduunka uga shaqeyso waxaan ka shaqeyn doonaa kow inaanu iskuulo u dhisno sababtoo ah waxa weeyaan qofka markaad doonaysa inaad nation abuurtid waxa weeyaan bini'aadamka inaad qofka bini'aadamka dhistid weeye marka u horeysa from the beginning macnihiisu ma aha inaan walaalaheen oo ah Muuse iyo walaalahayaga oo ah Tumaalo iyo walaalahayaga oo ah Anas iyo hawleba inaan ka tagnay tan macnaheeda sidoo kalena waxa halkaas khudbado kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah martisharti ka soo qayb gashay munaasabadan iftitaaxa ururkan sama khayriga ah dhalinyarada ay maanta ugu talagashay dadkooda inay ku difaacaan wixii dhibaato ku yimaadana ay kaga saaraan aad iyo aad waxaa lagu mahadnaqayaa marka dhalinyarada ay is-xiqaamay ee soo saaray jamciyadda tan ama dagaalanka kan aan siyaasad ku jirin aan cid ka dharanayn ee ah to get their rights xuquuqdooda inay helaan bal waxaa yeelaynaa dib aan fikir arrinta inamadaas soo qaadeen oo arrimada maanta ay gacanta ka qabteen ilaahay anagu u ducaynaynaa anagu waxaan nahay qorax casar joogta qorax casar joogta baan nahay ودعينا إن إلهي قال سيو ماشي الدنيا مدبنا إلهي قال سيو ماشي الدنيا هوشني ما هول ما تقول يا أخوي كتير وهويا ونولشة من آدم كواليتا أساسا تو من آدم قدام قعدت يتخشنا وقال ما هو في سوماليا بوشة فايفور مرة قلو كعن كلي يسعى كم قراعدو حتى إذا يدوه هو ولا نقول إذا نسقبسن وإذا نسكت دوان وإذا نسكت القادم هرمر الجاري بيسا. قبيل كستي هكي أنا شتين وأنا من نقول هرم قبسكم وحن خباع وهو الجلة السبي إنه خروج صهراء عاورة اللغوية وقولي أيهين صوبته وحا بوزيتيف ريزلت خطوط جاري من جالس أي جاليد وجود السنة كانت بكتيرة واللي يرادوا أحمد عبد الله الفارح. حتى يعاون تيسكوي مادان أي قرتين إلى الماضي روح بران وحنا السمايان إسكولاتنا السمايان وقت أكبر وفرح سنة هاي شكلها وورا ودنا على الافتقارنا لكن عاوي رجي باش مدواني موسيقى إسكوتشري حتى يعاون لسه تاجين إلى ما يربع وحق بين لا أكبر إذا كوفر فرح سنة هاي قرب عن الكوسيلة ما شافنا كودا إذا لا يا dhalinyarada soo abaabushay ururkan samafalka ah oo la doonayo in ummad Soomaaliyeed ee degta Soomaaliya oo dhan wax loogu qabto dad jira tihiin dad jira iska dhig qof ahaan wuxuu qaban karo $20 haddii dadka magacaan sheeganaya lagu qoro Soomaaliya oo dhan baa dhisi kartaa iska daa dadka aad wax u qabataan Kamal Xasan Hussein Kalsan TV magaalada Abu Dhabi